caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaa booqasho rasmiya ku yimid madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi awaare iyo wafdi uu hogaaminayo wasiirro iyo xildhibaano iyo marti sharaf kale ka kooban dhammaantood waxaan leenahay ku soo dhawaada galmudug ku soo dhawaada dariskiina ku soo dhawaada waxaan leenahay madaxweyne soo dhawaaw runtii waxa tahay hadee labadaba nabadoonadoodii nabadoonkii ka shaqaynayay galmudug iyo hirshabeelle labadaba odagoodii hadba meel tagahaya ayaa tahay adiga iyo wafdigaaguba soo dhawaada maanta farxaday noo tahay aniga iyo wafdigayga inaan nimaado reer hirshabeelle caasimadda galmudug ee dhuusamareeb runtii sheekh shaakir khayr allah siiye sidoo u dulmaray ujeedada aan u nimid waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb inaan waxa waaye ta koobaad inaan dhiiri gelino geedi socodka lagu dhisayo galmudugta cusub galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta hirshabeelle galmudug kama maaranto xagga amni ugama maaranto xagga nololeed ugama maaranto xagga wax wada qabsi ugama maaranto marka annaga galmudug oo toostay waa hirshabeelle oo toostay waxaan rajaynaynaa geedi socodkaa socda galmudug cusub inay halkaas ka soo baxdo gaalkacyo ilaa guriceel hobyo ilaa iyo mataqaanaa balanballe intii u dhaxaysa dadku ay isla wada jaan qaadaan dhulka cadowgu haystoo la xoreeyo xarar dheer ilaa ceelbuur ilaa hiiraan lagu keeno galmudug cusub oo dadkeedu nabad iyo baraare iyo walaaltinimo annaguna maadaama aan darisnahay aan garabsanno arrinta labaad runtii sida sheekh shaakir uu ka dhawaajiyey waxaa soo noqnoqday colaado runtii dad walaala oo hirshabeelle wada degan oo hiiraan wada degan dhex maray laakiin waxaan la inkiri karin talo fara badan oo nabadeynteeda iyo wax ka qabashadeeda qayb ka qaadan kartaahu inay ku nooshahay amay degan tahay ama ay ka taliso dowlad goboleedka galmudug sidaas daraaddeed inaan madaxda iyo odayada dhaqanka iyo intii wax ku biiri karta kala hadalno colaadahaas sidii loo soo afjari lahaa